salaadiinta cuqaasha waxgaradka waayeed ka bilaha gabooyaha ee Soomaaliland oo maanta shir jiraad ku qabtay hotel Xaraf ee magaalada Hargeysa ayaa si baahsan cabashooyin ugu soo jeediyay xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo waxaana ay sidoo kale iska daba mareen inay ku taageersan yihiin la taliyaha madaxweynaha beelaha la haybsooco ee maalintii shalay ku dhawaaqay inuu xilkaasi iska casilay waxaana ay cuqaashan iyo waxgaradkan oo ay horkacayeen boqorka beelahaasi ay soo jeedeen xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo cabashooyin iyo tabashooyin kala dambeeyay oo ay soo gudbiyeen ay waxba ka dhageysan waayeen isla markaana ay qaadi doonaan sifo kasta oo ay ku helayaan xuquuqdooda iyagoo amuurahaasi ka hadlayna waxay yiraahdeen sidan ku waafaqsanahay waan ku raacsanahay go'aanku isku casilay in badan ba reer Soomaaliland ka maqnaa mujaahid maanta anaku waxaan barqad baan mujaahid u bixinayna mujaahid barqad arrintu maanta isku casilay ee uu ku eegayo beeshiisa dulmiga lagu hayo dhibaatada lagu hayo ay ku hayso reer Soomaaliland kuma hayaan shicibka reer Soomaaliland kuma hayo axsaabta qaranka ee Soomaaliland kuma hayo waxa ku haya dulmigan waa Siraanyo iyo la taliyaashiisa cidda oo dawladdiisa ka talada qaata ama isagu ka talada qaato waxaan leenahay mudane madaxweyne in badan baa sidaa Suldaan Daakir sheegay aan wallahi wabal xukuumaddaneega waxaad ku qiimeysaa Soomaaliland waa deegaanay leeyahay laakiin anagu maanta waan ka miisaan weynahay codka ayaga waxa maanta dhagaha u dhigayo dhageysta caalamka bixiya international community wax walba wayna wareystaan xitaa markaanu baxno waxa naga wareystaan bal doorashada ka waramaya maanta Soomaaliland anugu arintooda ka waxaan reer Soomaaliland ma fariin diraya shicibka reer Soomaaliland 24 sano ayay meel dheer iyo meel gaabanba ay u mareen sida ictiraaf weeli laayeen ictiraafkii Soomaaliland maanta wuxuu ku xidhay doorashadaas waqtigeedii la qabtaa oo si xora oo xalaala u dhacda xukuumaduna uma soo jeedo way danaysanaysaa shicibka Soomaaliland uma eegiso ciida Soomaaliland ma eegiso goon isku taaga Soomaaliland ma eegiso laakiin waanu kordhisanayo maantana adduun weynuhu waxay u eegayaan sida doorashadu u dhici lahayd qodobka koobaad waxa weeyaan inaanu taageersanahay iscasilay la taliyay barqad oo anagu aanu ku talanay inuu iscasilo maadaama xukuumadda talada haysa uu Axmed Siraanyo madaxweynaha ka yahay muddo aan yarayn la dhowray la sugayay inuu wuxuun iska bedelo waxba iska bedeli waayay la taliyaha waliba magaca liita leh ay iswaafaqday magaca iyo ficilka ka imanaya madaxweynaha magaca waad ka war haysaana waxa weeyaan la taliyaha la haybsooco ayuu ku magacaaban yahay dikreetadana waxa soo saaray madaxweynaha qaranka Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo haybsooci uu noo magacaabay iyo ficilkiisina way iswaafaqeen oo waxa weeyaan xukuumadda uu garwadeen ka yahay waxaanu ka nahay ummad ka haybsoocan baan ka nahay oo aan wax allaaliya waxay ku qabantoon aan jirin qodobkaasi waa qodobka koobaad oo taageersana qodobka labaad kale waa fara badan ee odayaashayadu aniga laakiin daakir ahaan dhowr sanadood ama 2 sanadood ku dhawiye wada saayid saxaafad ma soo fariiso kama hadal saabaha kalifana waxa ahayd bal inay wuxuun isbedelaan oo iska sugno oo aan saadaalino wax isbedelana ma jiro sidoo kale odayaasha iyo cuqaasha ka soo jeeda beelahani ayaa iyagu sheegay in aanay marnaba ku sii jiri doonin xaqiraada iyo in dalkan Soomaaliland ay ugu noolaadaan sidii dad ajaaniba mar labaad iyagoo amuurahaas ka hadlay waxay yiraahdeen sidan asalaadu iscasilay barqad jaamac xirsi midaan u dhannahay bay ahayd midaan go'aan ku gaadhnay bay ahayd waanu ku saxsanaa
waxaanan u sheegaynaa xukuumadda inaanaan marnaba dulmigii hore iyo qaladaadkii hore ay naga gashaan u qaadanin inaan dib u qaadanayn xuquuqdayadana meel kasta oonu ka helinna waanu u gelaynaa jubaladda somaliland waa loo soo dhintay dad baa usoo dhintay silaanyana wuxuu doonayaa maanta inuu tii ku ciyaaro laakiin ma soconaysaan leenahay caalamkaanu gaadhsiinaynaa un-taan gaadhsiinaa meel walba waanu gaadhsiinaynaa xuquuqdeedana midaanu waayayno onu sidaa ku waayana maaha waa midaanu herayno waananu heraynaa geed kasta iyo geed gaabama waanu u fulaynaa silaanyo mushaahid baan ahaa soo dagaalamay buu yidhahdaaye isagu dagaal buu galay anagu dhufaysba waxaanu u gelaynaa madaxtooyada hoosteedaanu u gelaynaa waananu ku dagaalamaynaa waxa aanu ka baryayno oonu ka doonno oonu ka sugaynaana ma jirta isaga